soo dhawaada saaxiibayaal walaalkiin Aadam Nuur Xasan insha Allah maanta barnaamijkeena diyaaleen waxaan rabaa inaan kula wadaago course dhammaystiran aad ku baranaysid muuqaal samaynta ama video editing-ka. Course-kan waxaan ku baran doonaa programka lagu magacaabo CapCut. Waxaan ka diyaariyey markaa full course. Waxaan rajayn doonaa dhammaantiin inaad ka wada heli doontiin course-kan. Haddaba aynu gudgalno barnaamijkeena. Ugu horreyn intaynu gudgalin barnaamijkeena waxaynu ka codsanaynaa kanalka muuqaal production haddii aad cusub tahay fadlan subscribe saar videogana like saar. bal isku daya muuqaalkan like-tiisa inaad gaarsiisiin 500 oo like ah aad u mahadsantihiin saaxiibayaal. Ugu horreyn marka waxaynu ka bilaabi doonaa programka CapCut-ka qaabka loola soo degaayo. Ani hadda waxaan isticmaalayaa telephone Android aan isticmaalayaa. Adigana haddii aad Android aad isticmaashid waxaad soo furtaa markaa Google Play Store-ka aad soo furaysaa. Programku waa program free ah dhanka muuqaal sameyntana aad ugu wanaagsan runtii waxyaabo badan aad ku sameyn kartid. Marka programka Google Play Store-ka markaad soo gashid waxaad ku qoraysaa CapCut video editor aad ku qoraysaa. Anigana waxaan kuu soo dhigi doonaa linkigiisa description-ka waan kuu soo dhigi doonaa. Haddii aadan description-ka aadan aqoonna comment ugu hore aan kuu soo dhigi doonaa. Programka wax ka badan 100 milyan ayaa la degay runtii programka fariimaha dadka ay soo qorayaan qaybta Google Play Store-ka way amaanayaan programka. Waa program dhanka muuqaal sameynta aad ugu wanaagsan. Marka qaybta Google Play Store-ka markaad soo gashid CapCut-ka waa midkan aad u wada jeediin loogadiisa tan ay u egtahay. Marka programka aad la soo degi doontaa insha Allah. Programka marka aad la soo degtid CapCut-kana waad soo furi doontaa insha Allah. Marka programka CapCut-ka markaad soo furtid wajahadiisa ama interface-kiisa sida tan ay u egtahay. Marka si aad project ama mashruuc aad ugu sameysid programka waxaad u baahan tahay inaad ku dhufatid qaybtan ay ku qoran tahay daaqadan new project. Waa daaqada ugu horeysa uu ka kooban yahay programka markuu kuu soo furmo. Marka calaamadan plus-ka aad klik ku siinaysaa. Kadib qaybta internal-ka ama wuxuu ku soo gudbin doonaa telefoonka gudihiisa ayuu ku soo gudbin doonaa. Waxaad soo doorataa marka muuqaalada iyo sidoo kale videoyada aad u baahan tahay inaad edit gareysid. Qaybtan ugu horeysa waxa waaye qaybta videoyada aad ka soo dooranaysaa. Sidoo kale qaybtan waxa waaye photo ay ku qoran tahay sawiraan haddii aad u baahan tahay mashruucaada inaad ku dartid waad soo dooran kartaa. Marka ani hadda waxaan soo dooranayaa dhowrkan clip ayaan soo dooranayaa. Waxaad sameyn kartaa marka dhowrka clip calaamad wareeg ah ayaa corner-ka geeska ayuu kugu siinayaa. Haddii aad click ku siisid waxa waaye selection waa micnaha dhowr xabo ayaad dooran kartaa selection ayaad sameyn kartaa. Haddii kalena waxaad sameyn kartaa mid ayaad u soo dooran kartaa wax dhib ma lahan. Ani waxaan soo doortay 4tan clip ayaan soo doortay. Haddii aad u baahan tahay adigana waxaad ku soo darsan kartaa sawiraan ayaad ku soo darsan kartaa. Kadib intaad u baahan tahay mashruucaada uu ka kooban yahay inaad edit gareysid markaa soo wada dooratid. Qaybtan hoose wuxuu ku siinayaa marka programka meel ay ku qoran tahay add marka qaybta add-ka aad ku soo dhufan doontaa insha Allah. Marka add-ka markaad ku soo dhufatid waxaad imaan doontaa qaybta timeline-ka. Qaybtan waxaa loo yaqaanaa timeline ayaa loo yaqaanaa. Waxyaabahan dhan waan baran doonaa insha Allah programka uu ka kooban yahay. Marka qaybtan ayaad u soo gudbi doontaa insha Allah. Ugu horreyn marka programka intaadan wax kale aadan sameynin waxaad sameynaysaa waad soo jiidaysaa meesha ugu dambeysa ayaad imaanaysaa programka. Programka wuxuu leeyahay wax loo yaqaano reference ama logo. Qaybta gadaale ayuu kugu siinayaa. Xoogaa markaan soo dhaweeyo kale waad u jeedinayaan filayaa. Qaybtan loogada CapCut-ka ayaa soo muuqanaya. Marka tallaabada ugu horeysa CapCut-ka waxaad u baahan tahay inaad selection aad saartid aad dooratid click aad ku siisid loogada ugu dambeysa. Kadib calaamadan delete-ka meesha ku saaran inaad ku dhufatid. Haddii kale dadka waxay ogaanayaan inaad ku soo edit gareysay programka CapCut-ka. Tallaabada ugu horeysa CapCut markaad isticmaalaysid qaybta gadaale imow loogadiisa iska tuur. Waa programka waa free waad iska tuuri kartaa. Haddii aad u baahan tahay waad ku deyn kartaa. Marka waxaynu ka bilaabi doonaa insha Allah. Marka dhowr clip aan soo doortay 4 clip aan soo doortay afartooda clip waad u jeedinayaan filayaa. Marka sidoo kale adigoo isticmaalaya programkan CapCut-ka qaabkee ayaad u jarjari kartaa muuqaalka ayaad dooranaysaa. Kadib meeshan waxaad ku haysataa split ayaad ku haysataa meeshan splitka ayaad click ku siinaysaa. Kadib muuqaalkaas sidaas ayaa loo kala jari doonaa. Waad u jeedinayaan filayaa. Hadda clipkan waa la kala jaray laba ay kala yihiin. Sidoo kale meel kale ayaan imaanayaa split ayaan leeyahay. Meel kale ayaan imaanayaa muuqaalka dooro. Kadib toolkan splitka waxyaaba markaas ay kuu soo baxayaan. Laakiin adigoonan dooran selection-ka uusan kuu saareen calaamadan split ma arki kartid. Ama sidoo kale adigoonan dooran waxaad sameyn kartaa meeshaad u baahan tahay inaad jirtid ayaad imaanaysaa.
kadib waxaad soo furaysaa meeshan ay ku qoran tahay editka aad soo furaysaa, sidoo kale waxaad dooranaysaa split ayaad dooranaysaa. laakiin intaan waxaa ka wanaagsan muuqaalka inaad dooratid kadib split way kusoo muuqan doontaa insha Allah. marka adigoo isticmaalaya programkan CapCut-ka, qaabkan ayaad u samayn kartaa inaad muuqaal aad jarjartid muuqaalkaaga. waxyaabaha khaladaadka aad u baahan tahay muuqaalka inaad ka jarjartid, qaabkan aad u jarjari kartaa. marka muuqaalka jarjaritaanka waxay ku xiran tahay muuqaalkaaga inaad play aad dhahdid muuqaalkaaga aad daawatid, meelaha khaladaadkana waa jarjari kartaa. marka muuqaaladan hadda waa muuqaalo free stock ah, internetkan kasoo dejiyay ani hadda waan iska jarjaraya, laakiin adi muuqaalkaaga waad daawan doontaa. meelaha khaladaadka markaad dhimaatid qaabkan ayaad u jarjari kartaa. sidoo kale marka qaabkee u samayn kartaa wax loo yaqaano rearrange af Soomaaliyan waxaa lahaa isku aadin. tusaalehaan waxaad u baahan tahay clip inta yaalo inaad soo hormarisid ayaad u baahan tahay, clipka ugu hore inaad ka dhigtid. tusaalehaan waxaan u baahanahay clipkan hadda inta yaalo, clipkan aad u wada jeediin inaan clipyada midka ugu hore inaan ka dhiga ayaan u baahanahay. waxaad samaynaysaa marka fartaada aad dhab ku siinaysaa, kadib waxaad samayn kartaa marka waad u jeedin ayaan filaya clipyada meel walba uu ku kala go'san yahay ayaad waxaad ka samayn kartaa marka waad ka gelin kartaa clipkaada. hadda clipkii inta aan ka soo qaadnay ayaa waxaan keenayaa clipyada midka ugu horeeya aan ka dhigayaa. waad u jeedin ayaan filaya hadda wuxuu noqday clipka midka ugu horeeyo. hadda projectigeena midkan ayaa ugu horeeyay, kadib midkan ayaan kasoo hormarsiiyey. marka clipka meel kasta uu yaalo, tusaalehaan clipkan hadda inta yaalo ayaan u baahanahay muuqaalkayga inaan kuwa ugu horeeya inaan ka dhigo. clipka ayaad dhab siinaysaa, gacantaada dhab ku siinaysaa, waad soo jiidaysaa all the way meeshaad u baahan tahay ayaad dhigaysaa. waxaan rajeynayaa marka saaxiibayaal dhammaantiin inaad fahanteen qaabka loo sameynayo rearrange, inaad muuqaalkaaga clip walba meeshaad u baahan tahay inaad ka gelisid, inaad wada fahanteen dhammaantiina. sidoo kale marka adigoo isticmaalaya programkan CapCut-ka, qaabkee u samayn kartaa cut ama remove. waxyaabaha qaladaadka aad ka jarjartay muuqaalkaaga, waxyaabo aadan u baahnayn ayaa jiro. waxyaabahaas marka qaabkee u samayn kartaa iskaga delete kartaa. marka waxaad samaynaysaa muuqaalkaad u baahantay inaad delete garaysid ayaad dooranaysaa. markaad dooratid meeshan waxaad ku haysataa icon delete ayaad ku haysataa, iconkan ayaad click ku siinaysaa. hadda muuqaalkii sidan ayuu ku baxay. haddii aad u baahan tahay marka muuqaalkii kaa baxay, tusaalehaan gacanta kaaga dhacday inaad soo celisay aad u baahan tahay, calaamad meeshan waxaad ku haysataa undo ayaad ku haysataa, calaamadan ayaad click ku siinaysaa. muuqaalkii kaa baxay dib ayaad u soo celin kartaa. marka muuqaalka aad soo celisay haddii aad u baahan tahay marka haddana inaad dib u tirtirtid, waxaad samayn kartaa waad dooranaysaa muuqaalka, delete ayaad ku dhufanaysaa. sidoo kale marka adigoo isticmaalaya programka CapCut-ka, qaabkee u samayn kartaa transition af Soomaaliyan waxaa waaye kala gudbin ayaan dhihi karaa. waxaad u isticmaali kartaa laba clip, tusaalehaan clipka labadan clip markay kala gudbayaan inta yaroo u dhaxaysa ayaad u isticmaali kartaa transitionka, ama waad qurxin kartaa. qofka daawanaya muuqaalkaas wuu dareemayaa haddii tusaalehaan muuqaalka transition uusan lahayn. markuu daawanayo tusaalehaan muuqaalka hadda play aan dhaho, muuqaalka kale hore ayuu kasoo galayaa. marka transitionka marka dhanka muuqaal samaynta markii la joogo waa aad u qurux badan yahay inaad isticmaashid labada clip inta u dhaxayso, waa haddii aad u baahan tahay. marka transitionka si aad ugu soo dartid muuqaalkaaga, waxaad samaynaysaa waxaad ku dhufataa iconka u dhaxeeya labada clip ayaad ku dhufanaysaa, cadaanka ayaad click ku siinaysaa, kadib waxaa kuu soo muuqan doono transitiono runtii aad u qurux badan ayaa kuu soo muuqan doono. marka qaybta preview-gana hore ayaad ka daawan kartaa transitionkaaga qaabku u eg yahay. almost marka transitiono runtii aad u badan ayaa ku jiro. qaybaha marka midkaad u baahan tahay aad ka dooran kartaa. transitionada marka waxay u baahan yihiin programka CapCut-ka markaad isticmaalaysid teleefonkaaga inuu internet uu ku xiran yahay. almost marka qaybtan hoosena waxaad ku haysataa wax loo yaqaano duration. transitionkaas aad soo dooratay intaad u baahan tahay in uu ku socdo transitionka ayaad sekemada ayaad dooran kartaa. ani aad waxaan dooranayaa sekemadan ayaan dooranaya. kadib labadan option ayaad haysataa, apply to all iyo sidoo kale calaamadan saxda ah. apply to all waxaa waaye projectigaaga intuu ka kooban yahay, meel walba uu ka kala jaran yahay, transitionka aad soo dooratay ayaa lagu dari doonaa. haddii aad hal meel aad u baahantay inaad ku dirtidna transitionka dooro, kadibna calaamadan saxda hoose ku dhufo. marka waad ujeedin ayaan filayaa saaxiibayaal, transitionka hadda aanu kusoo darnay runtii aad ay u qurux badan yahay. marka adigoo isticmaalaya programka CapCut-ka, qaabkan ayaad ugu soo dari kartaa muuqaalkaaga transition.
waxaad imaanaysaa meesha uu ka kala jaran yahay muuqaalkaaga ayaad imaanaysaa calaamadda caddaanka ayaad click ku siinaysaa. Kadib waxaa kuu soo bixi doona transition aad u fara badan. Midkii aad u baahantahay aad click ku siinaysaa. Kadib calaamadan hoose ee qaybtan kuu saaran transition-kan wuxuu u baahan yahay inuu soo dego. Internet ayuu ku shaqeynayaa transition-adan. Kadib calaamadan saxda hoose ayaad click ku siinaysaa. Hadda transition-kan labaad aan isla wada daawano. waad u jeedinayaan filayaa sekemada haddii aad u baahan tahay waad badsan kartaa. marka adigoo isticmaalaya programka CapCut-ka qaabkan ayaad muuqaalkaaga transition ugu soo dari kartaa. waxaan rajeynayaa marka saaxiibayaal dhammaantiin inaad wada fahanteen. sidoo kale marka adigoo isticmaalaya programkan CapCut-ka qaabkee muuqaalkaaga ugu sameyn kartaa waxa loo yaqaano title ama qoraal qaabkeed ugu soo dari kartaa. qoraalkaaga wuxuu noqon karaa title, ayuu noqon karaa cinwaan, ayuu noqon karaa. sidoo kale wuxuu noqon karaa wax loo yaqaano lower third, ayuu noqon karaa subtitle, ayuu noqon karaa. marka si aad qoraal aad ugu soo dartid muuqaalkaaga, waxaad doorataa marka iconkan ay ku qoran tahay textiga ayaad dooranaysaa. meeshaad u baahan tahay waa inaad joogtaa muuqaalkaaga. qoraalka meeshaad u baahan tahay ugu horeyn inaad kusoo dartid waa inaad joogtaa. kadib waxaad doorataa calaamadan textiga ayaad dooranaysaa. sidoo kale waxaad doorataa marka qaybtan ay ku qoran tahay add textiga ayaad ku dhufanaysaa. waxaad qortaa marka qoraalkaad u baahan tahay aad qoraysaa. qoraalkaad u baahan tahay markaad qortid marka qaybtan styleka waxaad ka sameyn kartaa, waad qurxin kartaa qoraalkaaga. fontiska waad iska bedeli kartaa. qaybtan fartaad u baahan tahay aad dooran kartaa. waad u jeedinayaan filayaa. sidoo kale qaybtan hoose qoraalkaada waxaad u sameyn kartaa wax loo yaqaano border, ayaad u sameyn kartaa wareeg. sidoo kale qaybtan coloriska waaye qoraalkaaga colorkii aad u baahan tahay aad dooran kartaa. waad u jeedinayaan filayaa. opacity-gan hoose waxaa waaye qoraalkaaga aragtidiisa ayaad ka maamuli kartaa. haddii aad u baahan tahay watermark ama reference inaad ka dhigtid ama log ahaan inaad u isticmaashidna xoogaa khafiif ayaad ka dhigaysaa qoraalkaaga aragtidiisa. marka qaybtan qoraalka runtii waxyaabo badan ayaad ku sameyn kartaa. effects ayaad ku sameyn kartaa qoraalkaaga. waxyaabahan waxay u baahan yahay marka internet inaad kusoo dejisatay u baahan tahay ugu horeyn. tusaalahaan effectigan oo kale animation ayaad u sameyn kartaa qoraalkaaga. qoraalka markuu soo galaayo inka oo kale, hadda meeshan animationka inka markuu soo galayo oo kale wavekan ayaan doortay. hadda outkan waxaa waaye qoraalkaaga markuu dhammaanayo qaabkuu ku dhammaanayo wave out ayaan leeyahay asigana, qoraalka bilowga ilaa dhammaadka. hadda qoraalkan aanu kusoo darnay. qoraalka waxaad sameyn kartaa marka waad jiidi kartaa intaad u baahantahay inuu ku socdo ama intaad u baahantahay inuu joogo qoraalkaaga ayaad la ekeysiin kartaa. marka almost hadda intaan ayaan ku sameynayaa. kadib aan isla wada daawan. hadda qoraalka markuu soo galayo animation ayaan u sameynay, waynu qurxinay. markuu dhammaanayo animation ayaan u sameynay. bal aan isla wada daawano insha Allah. waad u jeedinayaan filaya runtii aad ayuu u qurux badan yahay. marka qoraalkaaga meeshaad u baahan tahay aad dhigi kartaa. almost center kale inaad dhigtid muhiim maahan. haddii aad u baahan tahay waxaad sameyn kartaa waad yareyn kartaa size-kiisa. haddii aad u baahan tahay waad warwareejin kartaa qoraalkaaga. almuhim marka qaybtan qoraalka meeshaad u baahan tahay shaashadaada ayaad ka dhigi kartaa. almost marka qaybtan centerka ayaan dhigaya yani hadda. marka qaybta qoraalka waxyaabo badan ayaad ka bedeli kartaa runtii. hadda layerka qaybtan sare ayuu imaaday. waad u jeedinayaan filayaa. marka adigoo isticmaalaya programkan CapCut-ka qaabkee muuqaalkaaga aad ugu soo dari kartaa music ama sidoo kale sound effect. waxyaabaha codka la xiriira qaabkeed ugu soo dari kartaa. waxaad isticmaali kartaa toolkan ay ku qoran tahay audio ama sidoo kale qaybtan ay ku qoran tahay timeline-ka add audio. meeshan ay ku qoran tahay aad click ku siinaysaa. optionka ugu hore waxaa waaye waxyaabaha codadka telefoonka gudaha kugu jira ayaad kusoo dari kartaa. optionkan labaad waxaa waaye waxyaabaha effectska dhanka codka waaye. kan waxaa waaye extracted ay ku qoran tahay waxaa waaye muuqaalka hadda meeshan kuu saaran haddii cod uu watay waxaad sameyn kartaa, waxaad kala saari kartaa codka iyo muuqaalka ayaad kala saari kartaa. midkan extract ay ku qoran tahay, midkan ay ku qoran tahay voice overkan asigana waxaa waaye codka ayaad hadda record gareyn kartaa ood ku dulduubi kartaa.
waxaa isticmaali kara midkaan dadka muuqaalada fasira ayaa isticmaali kara fasiraad ahaan. Marka aniga hadda waxaan ku dhufanayaa qaybtan sound ayaan ku dhufanayaa. Sound markaan ku dhufto kadib waxaad doorataa marka codka haddii uu kugu jiro ama music ha noqdo, waxaad doorataa qaybtan from device ka ayaad dooranaysaa. Kadib meeshan marka waxaad ka doorataa marka codka aad kasoo dooran doontaa insha Allah. Ani hadda marka music-gan ayaan soo dooran doonaa insha Allah. Marka waxaad samayn kartaa marka music-gaada inta waad ku dhageysan kartaa haddii aad u baahan tahay. Almost marka waxaan ku dhufanayaa qaybtan calaamadda plus-ka ayaan ku dhufanayaa. Marka waad ujeedin ayaan filayaa. Hadda sidaan ayaan ugu soo darnay muuqaalkeena music. Almost marka sida hadda ayaan ugu soo darnay music-gan waxaad ugu soo dari kartaa codkaaga haddii uu record uu ku yahay, ama waad record gareyn kartaa, ama sidoo kale waxyaabaha sound-igana sidaan ayaad ugu soo dari kartaa. Sidoo kale marka adigoo isticmaalaya programka CapCut-ka qaabkee marka u samayn karta wax loo yaqaano slow motion iyo sidoo kale fast motion. Runtii slow motion-ka iyo sidoo kale fast motion-ka waxyaabaha programkan CapCut-ka dhanka TikTok oo kale dadka ay aad u isticmaalaan waay. Marka si aad slow motion iyo sidoo kale fast motion aad u samaysid, waxaad doorataa marka clipka aad u baahan tahay inaad slow motion aad ku samaysid ayaad dooranaysaa. Kadib iconka meeshan kuu saaran speedka uu ku qoran yahay ayaad ku dhufanaysaa. Labadan option ayaad ku samayn doontaa slow motion-ka ama fast motion-ka. Midkan normalka ama sidoo kale midkan kale ay ku qoran tahay curve. Aniga waxaan isticmaali doonaa midkan normalka ayaan isticmaali doonaa. Muuqaalka normalkiis waxaa waaye marka one times waaye. One times-kan haddii aad ka badistid waxaa waaye fast motion waaye. Haddii aad one times-ka aad ka yaraysid waxaa waaye slow motion waaye. Marka one times-ka ayaan hadda ka badinayaa. Hadda two times ayaan ka dhigayaa. Marka muuqaalka ayaan isla wada daawano. Waan filayaa marka saaxiibayaal inaad u wada jeedin muuqaalka xoogaa speed ayaa ku wada furmay. Inkastoo muuqaalka hadda isticmaalay uusan ku habbooneyn waxyaabo slow motion iyo fast motion in lagu sameeyo. Almuhiim waxaa waaye inaad fahantid qaabka loo sameynayo. Adigana muuqaalka aad u baahan tahay ayaad ku samaysan kartaa. Almost marka clipka markaad dooratid qaybta speedka soo fur, sidoo kale qaybta normalka soo fur. Haddii aad one times-kan aad ka badisid waxaa waaye fast waaye. Muuqaalkaaga wuu ordayaa. One times-ka haddii aad ka yaraysid waxaa waaye muuqaalkaaga wuxuu noqonayaa slow motion ayuu noqonayaa. Hadda muuqaalkii slow motion ayaan ka wada dhignay. Marka adigoo isticmaalaya programka CapCut-ka qaabkan ayaad u samayn kartaa wax loo yaqaano slow motion iyo sidoo kale fast motion. Sidoo kale marka saaxiibayaal programkan waxyaabaha uu leeyahay features-ka uu leeyahay waxaa ka mid ah wax loo yaqaano keyframing. Keyframing-ka runtii waa tool aad u wanaagsan waaye. Haddii aad baratid wax badan aad ku samayn kartid. Marka keyframing saa u fahantiin, tusaale ahaan muuqaalkan inta markuu maraayo waxaan u baahanahay wejiga qofka inaan soo dhaweeyo ayaan u baahanahay. Iconka meeshan saaran waa keyframe waaye. Calaamadan plus-ka ayaan click ku siinayaa meesha saaran. Xoogaa ayaan kasoo durqayaa. Meelaha markuu marayo waxaan rabaa inuu soo dhawaado. Kadib calaamada plus-ka ayaan haddana mar kale keyframing click ku siinayaa. Kadib shaashadda ayaan waxaan sameynayaa marka farteeda ayaan kusoo dhaweynayaa. Marka hadda muuqaalkan ayaan isla wada daawano. Waad u jeedinayaan filayaa marka saaxiibayaal keyframing-ka sidaan ayaad u isticmaali kartaa. Ugu horeyn start point ayaad sameynaysaa, sidoo kale end point ayaad sameynaysaa. Haddii aad u baahan tahay muuqaalkan sidiisa hore inaad ku celisid, haddana xoogaa ayaad ka durqaysaa. Calaamad kale oo plus ayaad kusoo daraysaa. Kadib zoom out ayaad leedahay. Muuqaalka sidiisa hore ayaad ka dhigaysaa. Bal aan isla wada daawano muuqaalka. Waad u jeedinayaan filayaa marka programkan waxyaabaha uu leeyahay marka keyframing-kan ayaa ka mid ah. Runtii keyframing-ka waxyaabo badan ayaad ku samayn kartaa. Zoom in zoom out le ma ahan. Keyframing-ka marka sawiraan ayaad u isticmaali kartaa, qoraale ayaad u isticmaali kartaa. Muuqaal kaligiis looma isticmaalo keyframing-ka.
marka waxaan rajeynayaa saaxiibayaal inaad wax un ka fahanteen keyframingka. Sidoo kale marka adigoo isticmaalaya programka CapCut-ka qaabkee u sameyn kartaa wax loo yaqaano color correction. Muuqaalka xoogaa inaad qurxisid dhanka colorkiisa. Muuqaalka aad u baahan tahay ama clipka aad u baahan tahay inaad color correction aad ku sameysid ayaad dooranaysaa. Kadib iconskan ayaad soo jiidaysaa. Qaybta marka waxaad ku haysataa marka filter ayaad ku haysataa. Qaybtan filterka ayaad soo furaysaa. Marka waxyaabahan internet ay ku shaqeeyaan. Almost marka telefonkaaga waa inuu internet uu ku xirnaadaa. Kadib marka filterada meeshan kuu soo baxo, filterkii aad u baahan tahay aad dooran kartaa. Waad ujeedinayaan filaya marka saaxiibayaal filter runtii aad u badan ayaa ku jiro. Hadda filterka aynu saarnay oo kale originalkii sidaan ayuu ahaa. Filterkan hadda markaynu saarnay sidaan ayuu noqday. Marka qaybtan waxaad ku haysataa marka apply to all. Micnaheedu waxa waaye clipadaada haddii clipka waxyaabaha meesha ku saaran hadday jarjaran yihiin oo kale dhammaan colorkan ayaa la wada saari doonaa. Apply to all haddii aan dhahno oo kale dhammaan waxyaabaha meesha noo saaran oo kale hal color ayaa la wada saaray dhammaantooda. Hadda ujeedinayaan filaya isku color waaye. waan rajeynaa marka saaxiibayaal dhammaantiin inaad wada fahanteen qaabka color correction loo sameynayo. Ama sidoo kale waxaad isticmaali kartaa haddii aadan u baahnayn waxyaabaha meeshan saaran waxaad isticmaali kartaa qaybtan adjust ayaad isticmaali kartaa. Meeshan waxaad ku haysataa waxyaabihii color correction aad ku sameyn lahayd brightness-iga, contrast-iga, saturation-ka, exposure-ka, sharpen-ka, waxyaabaha highlight-ka, shadow-ga, tool walba inta aad ku haysataa. Marka haddii aad fahansan tahayna waad ku sameyn kartaa. Almost marka waxyaabahan idin deyn doonaa insha Allah. Haddii aad u baahan tahay marka waxyaabaha meesha ku diyaarsan colorska inaad isticmaashidna qaybtan filterka soo fur. Colorkii ku qancay meeshan color badan ayaa ku diyaarsan. Colorkii ku qancay ayaa dooran doontaa insha Allah. Marka saaxiibayaal programkan CapCut-ka runtii tuulishiisa inta kuma soo koobi karo. Programkan waxyaabaha cajiibku uu leeyahay waxaa ka mid ah wuxuu leeyahay wax loo yaqaano removing background. Muuqaalkaaga dhan ayaa waxaad ka saari kartaa background-ka. Muuqaalka ayaad dooranaysaa kadib meeshan waxaad ku haysataa remove background ayaad ku haysataa. Waad ujeedinayaan filayaa. Muuqaalkeena dhan ayaan background-ka ka saarnay. Marka waxyaabaha uu leeyahay programkan kuma soo koobi karo intaan. Marka tuulishiisa way badan yihiin runtii. Sidoo kale waxaad sameyn kartaa wax loo yaqaano chroma key. Haddii aad muuqaalo aad haysatid green screen ah waan rajeynaa dhammaantiin green screen-ka inaad wada fahansantihiin waad isticmaali kartaa. Sidoo kale waxyaabo badan ayuu leeyahay runtii programka. Marka inta kuma soo koobi karo. Waxaan rajeynaa marka course-kan inaad programka CapCut-ka inaad wax un ka fahantay qaabka muuqaalka loo jarjarayo, qaabka muuqaalka cut loogu sameynayo, qaabka muuqaalka music loogu soo darayo, transition qaabka loogu sameynayo. Intaas waa basic-ga uu u baahan yahay qof walba programka markuu soo furo. Inta kale marka xifradda qofka markuu isticmaalo programka gadaal ay ka imaanayaan. Marka ugu dambeyn saaxiibayaal course-ka inta ayaan kusoo gabagabeyn doonaa. Waxaan rajeynayaa marka aasiga uu u baahan yahay qof walba programka markuu soo furo CapCut-ka sida muuqaalka loo jarjarayo, sida muuqaalka cod loogu soo darayo, sida muuqaalka transition loogu soo darayo, sida muuqaalka qoraal loogu soo darayo, sida muuqaalka color correction loogu sameynayo. Waxyaabaha asaasiga qofku u baahan yahay waa haddii programka isticmaalkiisa aad badisidna tuulisha meesha saaran dhammaantood waad baran kartaa. Marka insha Allah marka inta aan kusoo gabagabeyn doonaa wax walba muuqaalka uu ku saabsan yahay marka dhameysid waxaad u baahan tahay marka inaad export aad dhahdid dibadda aad u soo saartid platformyada sidoo kale TikToker haddii aad tahay TikTok saad u geysid muuqaalkaaga, YouTube haddii aad tahay YouTube si aad u dhigtid. Ugu horreyn marka intaadan export aadan dhihin waxaad sameyn kartaa muuqaalkaaga haddii aad TikToker aad tahay qaybtan waxaad soo furtaa tuulishan formatka soo fur. TikToker haddii aad tahay 9:16 kan dooro. YouTuber haddii aad tahay 16:9. Haddii aad Instagram aad u wadid 1:1. Marka meeshan cabirkii kugu saxsan dooro. Ani hadda 16:9 ayaan dooranaya. Waa midka ugu caansan ee la isticmaalo dhanka YouTube-ka oo kale. Marka sidoo kale muuqaalkaaga quality-giisa inta aad ka sixi kartaa. Resolution-ka haddii aad u baahan tahay HD waxaad doorataa marka 1080 pixel. Haddii aad u baahan tahay 720 pixel waad dooran kartaa. Almuhim programka 1080 pixel ayuu leeyahay 4K ma lahan. Quality-ga 1080 pixel ayaa ugu dambeyso. Frame rate-kan waxaa waaye intaad u baahan tahay ilaa 60 ayuu gaarayaa. Mar walba frame rate-kaada uu bato
waa mar walba muuqaalkaaga xajmigiisa faylka uu badan doono. Marka ugu dambeyn intaa markaa iska saxdid qaybtan hoosena cabirka faylkaada ayuu ku tusayaa. Kadib waxaad ku dhufanaysaa calaamadan haddii aad ku qanacsan tahay filaartan kore aad ku dhufanaysaa. Kadib programka CapCut wuxuu sameyn doonaa inuu dibadda u soo saaro muuqaalkaaga. Waxaan rajeynayaa marka saaxiibayaal guud ahaan kooriskan dhammaantiin inaad ka wada faa'iidaysateen. Intii aan kusoo gabagabeyn doonaa walaalkiin Aadam Nuur Xasan oo idin leh. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.